nabaday daawadayaal meel kasta aad joogtaan barnaamijkeena caawa waxaynu ku soo qaadanaynaa soo dhaweyntii heerka sareysay ee magaalada Hargeysa maanta lagu soo dhaweeyay madaxweynaha dhaartu dhiman tahay ama musharaxa madaxweynaha maalmaha dhow madaxweynaha lixaad ee Somaliland yeelan doonto 13 November 2024 marka loo dareero doorashada madaxtooyada iyo ururada ay saaran musharax Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo safarkii walaaleeye toddobaadka ka hor bilaabay isla mar ahaantaana ku soo maray inta badan gobolada Somaliland ayaa ku soo guriyo noqday magaalada Hargeysa. Magaalada Hargeysa waxa si weyn ugu soo dhaweeyay shacabka magaalada Hargeysa oo ka kala yimaaday daafaha iyo daamaha magaaladu ka kooban tahay. Waxa shacabka horkacayay maayirkooda ay jecel yihiin Cabdikariin Axmed Mooge oo runtii bariyii ugu dambeeyay dadku isweydiinayeen Cabdikariin Axmed Mooge muxuu ka aaminsan yahay isbedelka xaguuse kaga maqan yahay xisbigiisii uu ka soo baxay ee halganka dheer ay soo wada mareen. Cabdikariin Axmed Mooge maayirka caasimadda Hargeysa oo ah shakhsi aad looga jecel yahay siyaasadda Somaliland ayaa fariin adag u diray xukuumadda iyo xisbiga kulmiye oo muddooyinkii ugu dambeeyay fagaarayaasha la taagnaa in Cabdikariin uu iskaga baxay xisbiga wadani sidoo kalena uu xilligan la jiro xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiye. Arrintan ayaa noqotay anfariir iyo afkala qaad kadib markii xukuumaddu saaka ku waabareysatay Cabdikariin Axmed Mooge maayirka caasimadda Somaliland oo hogaaminaya mowjado ka mid ah taageerayaashiisa iyo kuwa xisbiga wadani oo duleedka magaalada Hargeysa ama dhinaca bare magaalada Hargeysa gaar ahaan deegaanka haleeye kaga hortagay wafdiga musharaxa madaxweynaha xisbiga wadani Cabdiraxmaan Ciro oo hogaaminayay oo ka soo laabtay safarkoodii walaaleeye gobolada bariga ay ku marayeen horena ay ugu soo mareen gobolada galbeedka. shakhsiyadeed iyo dana gaar ah inteena halkaa joogtaa midna kama rabo waxaynu ka rabnaa dalkana inuu dhiso ummadda inuu walaaleeyo innaga waxaa laynaga rabaa maantuu inoo baahan yahay inaynu albaabada u garaacno oo cod u doonno oo guusha la doonno farriintaas oo ah in qof kasta uu dadaal ku bixiyo sidii Cabdiraxmaan loo gaarsiin lahaa oo kursiga Cabdiraxmaan saarno. anigana maanta halkan waxaan ka dirayaa farriin weyn farriintaas oo ah in qof kasta uu dadaal ku bixiyo sidii Cabdiraxmaan loo gaarsiin lahaa kursiga madaxweynaha insha Allahu tacaala haddii la yidhaahdo. dhanka kale beesha degta qaybo ka mid ah gobolada saaxil togdheer sool iyo sanaag waa beesha magacyada badan lagu naanayso dadka qaar ay yiraahdaan hay'adda dadka qaar ay yiraahdaan SSP dadba magacyo ay ugu yeedhaan laakiin magaca loo yaqaan ay tahay beesha habar jeclo ee ka tirsan beelweynta Isaaqa ayaa go'aano masiiriya ku gaadhay deegaanka Celaf Weyn kuwaasi oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay shirar uga socday qayb shirar la lahaa waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee dadka deegaanka ka soo jeeda cuqaasha waxgaradka iyo madaxda dhaqanka ayaa bayaan ay soo saareen saacad ugu sheegay inay dhisayaan musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee waddan Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. qodob labaad oo ay ku dareen ayay saacad ugu sheegeen inay sidoo kale dhisayaan ururka ka oo gudoomiye ka yahay Maxamuud Xaashi Cabdi kaas oo xilligan jaangoynaya siyaasadda ay ku loolamayaan saddexda musharax ee madaxweynaha. maanta waxay go'aansatay inay dhiso musharax Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ciro iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ambassador Maxamed Cali. hawsha waxa loo eegay habar jecel midnimadeena inaanay kala tagin ina biixina inuu wadanka ka tagaa loogu tala galay ninka ina Cabdiraxmaan Ciro yimaadana isbahaysi ay dhawaan sameeyeen xisbiga wadani iyo ururka ka ayaa sababay in xilligan 99% taageerada beesha habar jeclo ay u foorsato dhinaca ka iyo xisbiga wadani oo ay soo saarayaan musharaxiisa madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi. intan ayaa afkala qaad ku noqotay xukuumadda maalmaha kooban oo hadhan yahay waxaana arrintan fadhiga u diiday Maxamed Kaahin Axmed oo ah wasiirka arrimaha gudaha sidoo kalena gudoomiyaha maqaar saarka xisbiga kulmiye kaasi oo u boqolay gobolada bari
oo xisbiga wadani iyo ururka ka madaxdiisu maanta ay ka soo jahaysteen dhinaca caasimadda waxaanu isla maanta ka abaabulay odayaal aan wajiyadooda la garanaynin magaalada Ceelaf Weyn iyo sidoo kale magaalada Caynaba kuwaas oo uu sheegay in ay ka soo horjeedaan ama qaadacayaan qodobadii ka soo baxay shirkii beelweynta habar jeclo ku yeelatay deegaanka Ceelaf Weyn. Ceelaf Weyn waxaa sidoo kale madaxda dhaqanka ee beelaha habar jeclo iyo garxajiis ay si wada jir uga soo saareen bayaan iyo nabadayn ay ka dhexdhaliyeen beelaha walaalaha ee wadadega magaalada Ceelaf Weyn oo dhowr mar dirir hore halkaas ugu dhex martay isla markaana loo aaneynayay in xukuumadda iyo xisbiga kulmiye marar badan ay faragelin siyaasadeed ku sameeyeen deegaankaasi isuna adeegsadeen dadka walaalaha ee halka wadadegan. daawadayaal qodobadaasi waa kuwa aynu ku hayno barnaamijkeena xiisaha badan ee caawa waxaanaynu sugnaa in ololaha doorashooyinku bilaabmo dhowaan. dhinaca kale komishanka doorashooyinka Somaliland ayaa maanta soo saaray warqadda jadwalka ololaha doorashooyinka Somaliland oo ay u qaybiyeen xisbiyada iyo ururada. urur kasta oo ka tirsan ururada tartamaya ee u tartamaya xisbinimada oo ay ku jiraan saddexda xisbi ee imaku waxa uu helay 2 cisho oo olole ah halka xisbiyadii hore wadan iyo u codeeyo kulmiye ayagu leeyihiin maadaama ay musharaxiin madaxweyne u tartamayaan ay leeyihiin maalin dheeraad ah oo musharaxiinta iyo xisbiyadooda ay fagaarayaasha dadka kula hadli doonaan. sidaasi waxay ku noqonaysaa in xisbi kasta oo ka mid ah saddexdan xisbiye imaku uu yeesho 3 cisho urur kastana uu 2 cisho yeesho. ololaha doorashooyinka Somaliland ayaa si rasmi ah u bilaabmi doona 19 bishan aynu ku jirno waxaanu ku eeg yahay 10 bisha November. 3 cisho ugu dambeeyana waxay noqon doonaan 3 cisho ee la kala diri doono xubnaha komishanka iyo muraaqibiinta gobolada waxaana 13 bisha November loo asteeyay inay noqoto maalinta codbixinta Somaliland ee doorashooyinka madaxtooyada iyo sidoo kale ururada. taniyeentaynu ku kulmayno barnaamij sidan oo kale waa aniga Sakariye Jeylaaniya waxaan idinkaga tagayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.